Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan shacabka media. Waxaana wararkan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin qarax ka dhacay caasimadda Muqdisho oo lagu soo waramayo in arday iskuul ay ku leedeen khilaaf ka taagan qorshaha gudoomiyaha gobolka Banaadir uu doonayo in uu ku ballaariyo caasimadda Muqdisho. Mareykanka oo dhisanaya garoon diyaaradeed oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo mar kale shirka golaha guud ee qaramada midoobay uga dhawaaqday dalab horey uga caraysiyay Djibouti. Xisbiga uu sameystay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muran uu ka taagan yahay iyo xisbi kale oo arrintaasi soo farageliyay. Somaliland oo shuruud adag ku xirtay wadahadal ay dowladda kula gasho Muqdisho. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo sheegay in la gaaray xilligii uu madaxweyne Farmaajo ka degi lahaa Hargeysa. Dowladda Carbeed oo lacago ku bixinaya sidii ay Israa'iil u duqeyn lahayd Gaza. Sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa su'aasheena maanta. Waxaan ogeysiinaynaa dhammaan daawadayaasha sida tooska ugu xirnaa Suldaanka TV in wararka iyo barnaamijyada halkaasi ay kala socdeen haatan wixii ka dambeeya ay si toos ah kala socon doonaan dhanka iyo shacabka media. Haddaba ka mid noqo asxaabta kumanaanka gaaraya ee haatan nagula soo biiray shacabka media isla markaana subscribe halkaasi inoo saar sidoo kalena la wadaag asxaabtaada akhbaaraadka kala duwan ee aynu kuu soo gudbinay. Waxaan mar walba kaaga mahadcelinaynaa sida aad ugu xiran tahay wararkeena iyo barnaamijyadeena iyadoona shacabka media uu ku tiirsan yahay taageeradaada. Warkii oo fidsan. Wararka ka imaanaya caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay wadada warshadaha isla markaana qaraxaasi inta badan dadka waxyeelada ay ka soo gaartay ay u badan yihiin arday iskuul. Wararka naga soo gaaraya degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay wadada warshadaha maanta isla markaana qaraxaasi faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen jug xoogan oo qarax ah kaas oo ay sheegeen in uu ka dhacay meel ku dhow argada degmada Dayniile. Wararka qaar ayaa sheegaya in xilliga qaraxa uu halkaasi ka dhacay ay marayeen gawaari ay leedahay dowladda Talyaaniga kuwaas oo la sheegay in iyaga lala eegtay qaraxa. Sida ay sheegayaan warar kale oo hordhac ahna qaraxa ayaa khasaare xoog leh u geystay arday aad u badan oo marayay wadada xilli ay ku beegneed waqtigii laga soo baxay iskuulka. Inta la xaqiijiyay ku dhawaad 10 qof oo arday u badan ayaa qaraxa ku dhintay waxaana jira dhaawac intaas ka badan inkastoo aan la soo gudbin tirada rasmiga ah ee dhaawacyada ka dhashay qaraxaasi. Sidoo kale waxaa ila kale oo aan la hadalnay ay sheegayaan in uu bas beelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada Talyaaniga oo halkaas marayay iyadoo ay la socdeen kuwo Soomaali ah. Ciidamada Talyaaniga oo si joogto ah u isticmaala wadooyinka Muqdisho ayaa shacabka reer Muqdisho waxaa si gaar ah ay ugu yaqaanaan in goob kasta oo ay marayaan taleefanada anteenada ay ka tagto isla markaana qofka uusan awoodi karin inuu isticmaalo taleefankiisa. Maalmihii hore ciidamada ayaa kaligood Muqdisho iska dhex mari jiray waxaana maalmihii ugu dambeeyay jiray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo wata gawaari gaashaaman oo wehelinayay ciidamadaasi. Ciidamada Talyaaniga ayaa ka mid ah ciidanka midowga Yurub ee tababarada aadka u xoogan siiya ciidanka dowladda Soomaaliya waxaana lagu arkaa iyagoo ku socda gaadiid military oo aad u gaashaaman. Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ku dhow wasaaradda difaaca Soomaaliya iyadoo oo aysan ilaa iyo haatan soo bixin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. Khilaaf ayaa lagu soo waramayaa inuu ka taagan yahay qorshaha dhawaan uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ka oo ku aadan in la ballaariyo caasimadda xuduudaheeda. Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan hadal uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso shalay ka sheegay shir ballaarinta soodimaha ay caasimaddu leedahay ku saabsanaa. Gudoomiyaha gobolka ayaa hadalkiisa ku sheegay in baahi saa'id ah loo qabo in caasimadda ay ballaarnaato maadaama xilligan ay ku nool yihiin tiro aad u badan oo shacab ah. Waxa uu gudoomiyaha shirkaasi ka sheegay in bulshada caasimadda ay tala ahaan u soo jeediyeen in la gaarsiiyo xuduudaha caasimadda labada webi ee Balcad iyo Afgooye. Daawud Xaaji Ciro oo ah afhayeenka maamulka Hirshabelle ayaa intaa kadib sheegay in arrintan ay ka hor imaanayso dastuurka Hirshabelle isla markaana cabashada arrintan la xiriirta ay u gudbiyeen guddiga aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Nuqul ka mid ah hadalkiisa ayaa ahaa arrinka ku saabsan ballaarinta caasimadda Muqdisho iyo in lagu daro degmada Balcad waxay ka hor imaanaysaa dastuurka Hirshabelle waxaana
cabashadaas madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ay u gudbiyeen guddiga aqalka sare. Afhayeenka Hirshabelle ayaa waxa uu sheegay hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaawacayo rajooyinka maamulka iyo qodobo kale oo dastuurka maamulkaasi u yaala. waxa uu sheegay in Hirshabelle ay dhibaato ku tahay in degmada Balcad lagu daro caasimadda Muqdisho, isagoona tilmaamay in guddiga aqalka sare ee kasoo tala bixinta khilaafaadka maamulkaasi ay u gudbiyeen arrinkan. qayladhaanta Hirshabelle ayaa imaanaysa xilli sanadkii 2014 uu jiray muran xuduudeed u dhaxeeyay maamulka Koonfur Galbeed iyo caasimadda Muqdisho kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu burburiyay tabeelo laga taagay agagaarka deegaanka Jazeera, kaasi oo cadeynayay in deegaankaasi uu ka tirsan yahay maamulka Koonfur Galbeed. dowladda Mareykanka ayaa la ogaaday inay dhisanayso garoon diyaaradeed oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa dhismaha mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ku yaala koonfurta Soomaaliya, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo la soo gaarsiiyay shacabka media. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in lacag gaaraysa 12.3 milyan oo dollar ay ku maalgelinayso shirkad fadhigeedu yahay gobolka North Carolina oo lagu magacaabo URS Group, taasi oo fulin doonta dayactir degdeg ah oo lagu sameynayo dhabaha diyaaradaha ay ku ordaan ee garoonka Belidogle gobolka Shabeellaha Hoose. wasaaradda gaashaandhigga waxa ay sheegtay in dayactirka uu ku jiro in si qoto dheer loo dhiso dhabaha si ay u fududaato howlgallada ay diyaaradaha ku sameynayaan garoonkaasi. dhismaha garoonka ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo bisha September ee sanadka 2019 sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. dhabaha garoonka Belidogle ayaa dhererkiisu dhan yahay 3.2 kilomitir, waxaana sanadihii 70-aadkii loo dhisay ciidamadii militariga Soomaaliya oo xilligaas taageero ka helayay midowga Soviet amaba dalka Ruushka. garoonka ayaa waxaa hadda isticmaala oo degan ciidamo Mareykan ah oo howlgallada ka fuliya Soomaaliya, iyadoo sidoo kale kuwa AMISOM oo ay weheliyaan ciidamada howlgallada gaarka ah fuliya ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee danab ay iyaguna halkaasi fariismo waaweyn ku leeyihiin. dowladda Mareykanka ayaa haatan garoonkaas waxay u aragtaa midka keliya ee ay sida tooska u isticmaali karaan ciidamadeeda. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shirka guud ee qaramada midoobay waxaa mar kale ay ka shaacisay dalab ay horay uga carootay dowladda Djibouti. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale adduunka ka dalbatay in il gaar ah lagu eego arrinta dowladda Eritrea, isla markaana laga qaado cunaqabataynta dhinaca hubka ah ee saaran. dowladda waxa ay tilmaamtay in Soomaaliya ay dhinacyo badan ka eegayso baahida xilligan loo qabo in cunaqabataynta laga qaado Eritrea. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shirkaas ku matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hadalkaas ku sheegay khudbad uu ka jeedinayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana uu ku baaqay in cunaqabataynta laga qaado Eritrea. wasiir Cawad waxa uu tilmaamay in cunaqabataynta laga qaada Eritrea ay ka dhigan tahay albaabo nabadeed oo hor leh oo u furma geeska Afrika, sida uu hadalka u dhigay. wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Wogne Gebeyehu ayaa isna shirka ka sheegay inay muhiim tahay in la soo dedejiyo waddo walba oo cunaqabataynta looga qaadi lahaa Eritrea, waxaana uu soo jeediyey in la garab istaago isbedelada ka socda geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax ayaa isna dhammaan khudbadiisa golaha qaramada midoobay uga hadlay cunaqabataynta oo uu sheegay inay tahay mid sharci darro ah. wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo isna Djibouti ku matalayay golaha guud ee qaramada midoobay ayaan sameynin codsiga ah in cunaqabataynta laga qaado dalka Eritrea. wadamada Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia iyo Djibouti ayaa wasiiradooda arrimaha dibadda u diray shirkii 73aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, kuwa oo halkaa ka jeediyay khudbadaha ay jeedin lahaayeen madaxdooda. si kastaba ha ahaatee, arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay 30 July 2018 ku baaqday in cunaqabataynta laga qaado dalka Eritrea, waxaana arrintaas aad uga carooday dowladda Djibouti oo la baxday danjirihii Muqdisho u joogay. inkastoo ay muuqatay in arrintaasi la xaliyay, isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu socdaal ku tagay Djibouti, isla markaana isku soo dhawaasho ay sameeyeen labada dhinac, haddana arrintan waxaa loo arkaa in mar kale halkeedii ay ku laaban karto.
madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sameystay xisbi ayaa waxaa muuqata in xisbigaasi magaciisa muran badan uu ka taagan yahay waxaana ku dhagan mid ka mid ah xisbiyadii hore uga jiray gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu wadaa in xisbi cusub oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud looga dhawaaqo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xisbiga cusub ayaa waxaa qorshuhu yahay in lagu dhawaaqo maalinta Khamiista ee fooda nagu soo haysa waxaana soo baxaya in isqabqabsi xisbiyadeed oo ka dhashay magaca xisbiga cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud lagu magacaabo isqabqabsiga xisbiyadeed ayaa soo shacbaxay kadib markii Cabdullaahi Sheekh Xasan oo wasiir ka ah maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay in magaca xisbigiisa ay qaateen xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud xisbiga uu sheegtay Cabdullaahi Sheekh Xasan inuu aasaasay 2011 ilaa 2012 ayaa lagu magacaabaa Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda Soomaaliyeed Somali Peace and Democratic Union oo magaciisa loo soo gaabiyo SYPDU halka xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh lagu magacaabo Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda Union for Peace and Democratic UPD ka oo isna lagu dhawaaqay maalinimadii shalay ahayd mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh ayaa dafiray in labada xisbi ay isku magac yihiin isla markaana ay dadku yihiin kuwa isku qaldi kara labada magac waxa uu sheegay inuusan ka mid ahayn xisbiyada uu diiwaangeliyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran magacaabidda xisbigoodana uu yahay mid ay horay uga sii fikireen inta aanay ku dhawaaqin si aysan u dhicin in ay qaataan magacyo ka mid ah xisbiyada la diiwaangeliyay marka la eego magacyada labada xisbi ayaa ah kuwo isku eg waxaana muuqanaysa in Xasan Sheekh Maxamuud iyo garabkiisa ay afduubteen magaca xisbiga Cabdullaahi Sheekh Xasan sida ay qabaan dad badan oo siyaasiyiin ah dawladda ayaa sidoo kale fursad u arki karta inay ku duulaan tagto in magaca xisbiga cusub horay loo diiwaangeliyay isla markaana aysan suuroobi karin in mar kale la diiwaangeliyo magacaasi lama oga halka ay ku dambeyn doonto arrintan balse waa caqabad cusub oo soo wajihi karta xisbiga cusub ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Somaliland ayaa shuruud adag waxa ay ku xirtay wadahadal ay dawladda kula gasho magaalada Muqdisho Somaliland ayaa shuruud adag ku xirtay wadahadallo ka dhaca magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho oo ay yeeshaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ka horeysa in wadahadallada ay ka dhacaan Muqdisho ama Hargeysa in la ictiraafo oo Somaliland loo aqoonsado dal ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Saad Cali Shire oo la hadlay BBC-da wadahadallada inta laga gaarayo Somaliland in la aqoonsado waxaa lagu wada hadlayaa meel kale oo marqaati leh ayuu yiri wasiir Saad wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waxa kale oo uu sheegay in wadahadalka labada dhinac oo bilowday sanadkii 2012 uu iminka hakad ku jiro hakadkaasna ay keentay cabashadii dawladda federaalka ahi ay ka muujisay heshiisyadii saddex geesoodka ah ee u dhaxeeyay Somaliland Ethiopia iyo shirkadda dawladda Imaaraadka ay leedahay ee DP World ee ku aadanaa dekedda Berbera balse waxa uu sheegay in taas micnaheedu aysan ahayn in ay diyaar u yihiin in wada hadal ay dib u bilaabaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland oo si iskeed ah madax banaani uga dhawaaqday ayaa laga soo bilaabo sanadkii 2012 ku shirayay dalalka dibadda waxaana shirarkaas ujeedooyinkooda ay ahayd in labada dhinac ay isku soo dhawaadaan qaarkood ayaa fashilmay qaarkoodna qodobadii ka soo baxay labada dhinacba kama fulin isla wararkaas Somaliland ayaynu ku guda jirnay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilligii uu madaxweyne Farmaajo ka degi lahaa magaalada Hargeysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay dardar geliso sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa BBC-daasna u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diyaar u yahay inuu ka dego magaalada Hargeysa isaga oo sida calanka Soomaaliya balse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay in waxaas dhan ay ka horeeyaan in dawladda Soomaaliya ay dawlad madax bannaan u aqoonsato Somaliland wadahadallada u dhaxeeya labada dhinac ayaa bilowday sanadkii 2012 iyadoona wadahadalladaas ay soo wajaheen caqabado kala duwan oo ka yimid labada dhinac madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu xilka qabtay ballan qaaday inuu dardargelin doono wadahadalka labada dhinac isagoo sheegay in xukuumaddiisa ay dhageysan doonto wixii tabasho ah oo jira sida uu hadalka u dhigay isla markaana waxa uu
sheegay inay ka go'an tahay in Somaliland wada hadal dhab ah ay la sameeyaan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu jiro qorshe ay iska kaashanayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mas'uuliyiinteeda taa oo ku aadan in madaxweyne Farmaajo uu tago magaalada Hargeysa halka madaxweyne Muuse Biixi uu yimaado magaalada Muqdisho, taas oo muujin karta sida uu hadalka u dhigay isbedelada wanaagsan ee geeska Afrika ka socda. ugu dambeyntiina dowladda Carbeed ayaa la ogaaday inay lacag ku bixinayaan sidii ay Israa'iil u duqeyn lahayd marinka Gaza. hogaamiyaha xarakada Islaamiga ah ee Xamaas ahna xubin siyaasadeed oo ka tirsan ururkaas Maxamuud al-Zahar ayaa maalintii Sabtida ahayd gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar, waxaana uu sheegay inuu socdo olole lagu doonayo in Israa'iil lacag lagu siiyo ayna duqeymo cusub ka geysato magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. hogaamiyaha Xamaas ayaa sheegay in ay iyagu diyaar u yihiin in la isdhaafsado maxaabiista la kala haysto ayna dhankooda soo daynayaan kuwa ay Israa'iil ka haystaan, iyagana ay soo daayaan qoysaska Falastiiniyiinta ah ee ay gacanta ku hayaan. al-Zahar waxa waraysi gaar ah oo uu siiyey Al-Khaliij Online uu ku sheegay inay socdaan qorshe uu wado madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas iyo dowlado Carbeed oo la doonayo in lacag lagu siiyo Israa'iil si ay duqeyn mar kale uga geysato marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Cabbaas waxa uu qorsheynayaa duqeymo cusub oo laga fuliyo marinka Gaza, waxaana hawshaas dhinac kasta ka wada dowladda Carbeed kuwa oo lacago ku bixinaya in duqeymo cadowtinimo lagu qaado marinka Gaza, ayuu yiri al-Azhar oo waraysi dhinacyo badan taabanaya bixiyay. al-Zahar oo la weydiiyey in uu faahfaahin ka bixiyo qorshahan socda iyo dowladaha wada ayaa ka gaabsaday inuu hadda faahfaahin ka bixiyo, isagoo kaliya ku gaabsaday in Cabbaas uu qorshahaas u gudbiyay dowladda Carbeed ayna socdaan olole culus oo ka dhana marinka Gaza. wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday hogaamiyahan in sidoo kale qorshahan ay qayb ka tahay in la xiro lacagaha bangiyada ku jira iyo in xubnaha Xamaas laga joojiyo mushaarka iyo in mushaarka laga joojiyo xubnaha maamulka magaalada Gaza. wuxuu sheegay in Cabbaas uu wado qorshe lagu barakicinayo dadka Gaza degan, isagoo sheegay in arrintaas ay kala shaqeynayaan maamulka Israa'iil iyo wadamo kale oo Khaliijka ka mid ah. al-Zahar ayaa sidoo kale sheegay inuu Cabbaas dhabarka u saarinayo Xamaas weerarkii lagu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa kaasoo ka dhacay magaalada Gaza, wuxuuna si cad u sheegay inaysan wax lug ah ku lahayn Xamaas weerarkaasi. al-Zahar ayaa sidoo kale sheegay inuu Cabbaas hoos u dhigay 40 ilaa 50% mushaarka la siinayay shaqaalaha maamulka Gaza, ayna tahay ujeedada laga leeyahay in lagu ciqaabo weerar aysan shaqo ku lahayn. markana su'aasheena maanta daawadayaal waxa ay ku saabsan tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso waxa uu wadaa qorshe ku aadan in la ballaariyo xuduudaha caasimadda, isagoo sheegay in arrintan baahi weyn loo qabo. gudoomiyaha ayaa soo jeediyey in caasimadda xuduudaheeda la geeyo labada webi ee magaalooyinka Afgooye iyo Balcad, isagoo taasi sheegay inay ka dhigan tahay in shacabka caasimadda ay aad u bateen islamarkaana loo baahan yahay in caasimadda ay fido. hadalkan waxaa ka soo horjeestay maamulka Hirshabelle oo sheegay in taasi ay dhaawacayso dastuurka u yaala maamulkaasi ayna suuragal ahayn in xilligan Balcad ay ka mid noqoto magaalada Muqdisho. haddaba daawade go'aankan uu soo jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir sidee ayuu kuula muuqdaa, mase tahay xilli loo baahan yahay in caasimadda la ballaariyo? daawadayaasha si ay fikradahooda saliimka ah nala wadaagaan waxa ay si toos ah nagala soo xiriiri karaan dhanka iyo WhatsApp-ka nambarada shaashada idinkaga muuqda. guud ahaanba waxaa intaasi nooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen Shacabka Media, waxaana warka idin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan kan xiga, nabadgelyo.